shirkan u dhaxeeya beesha caalamka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa looga hadlayaa diyaar garowga shirweynaha ka qabsoomaya toddobaadka soo socda magaalada Brussels ee wadanka Belgiumka. Shirka ayaa waxa shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre waxaana ka qayb galaya wakiilo matalaya hay'adaha caalamiga iyo wadamada ay saaxiibka yihiin Soomaaliya. shirka waxa intiisa badan diiradda lagu saari doonaa diyaar garowga kala guurka waqtiga loogu magac daray in ciidamada Soomaalida ay amniga guud ee dalka kala wareegaan ciidamada AMISOM marka ay dalka ka baxaan. waxa uu qayb ka yahay qorshayaasha waaweyn ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ugu diyaar garoobeen in ciidamada qaranku ay la wareegaan guud ahaan ammaanka dalka. waxaana shirka magaalada Brussels ka dhici doona toddobaadka soo socda looga hadli doonaa ama caalamka loogu soo bandhigi doono istiraatiijiyadda dawladda Soomaaliya ee ku aadan diyaar garowga ciidamada Soomaalida ay ula wareegayaan ciidamada AMISOM ammaanka guud ee dalka. Asra Bashir Cali magaalada Muqdisho.